كترسن حلوانada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waayeel kale wafdigaas waxay u yimaad maanta in nagala qayb qaataan sidaynu maaragtay u bogsiin lahayn wixii qoonaya ka dhashay waxyaabihii yaraa ee dhacay maalmihii dhaweyd iyo geeridii maanta timeen xalinta lahayd taasi oo ay maanta iska arkeen waayeelka gobolka ay u horeeyaan suldaanka guud boqorada salaadiinta chief caaqilada iyo uqaasha kale iyo waayeelka kale uu helinayay marka hadalka maanta meesha ka dhacay iyo sidii wax u dhaceen iyo wanaagii lagu kala yimi waxa hadalka ugu horeysiin doonaa oo ku soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Warcade hada wasiir waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee quruxda badan ee ay noogu dhamaatay shaqooyinkii ka dhacay gobolka Gabiley run ahaantii waxaan jeclahay inaan halkan uga mahadnaqno aniga iyo wafdiguba odayaasha qiimaha leh ee ugu horeeyaan salaadiinta boqorada uqaasha iyo madax dhaqameed kale iyo waxgaradka gobolka oo runtii sidii aanu ka filaynay lagu yaqaanay reer Gabiley nabadda iyo adkeynta nabadda aan ugu nimid oo aanu wax ku salaynay sidii aanu filaynay muddo gaaban ay noogu dhamaatay hawshii aanu u soconay ayaa horta ilaahay baa mahaddeeda leh aan ilaahay ugu mahadnaqaynaa waxa runtii dhaqan inoo ah haddaynu nahay ummadda reer Somaliland dhibku wuu dhacaa laakiin waxaynu ummadaha kale ku dhaafnay ama laynagu majeertaa waxa weeye talada wanaagsan caqliga wanaagsan madax dhaqameedka wanaagsan ee waddankeena daaf walba ka jooga ee runtii arrimuhu markay dhacaan si gobonnimo leh oo waddaniyad ah oo muxuu ahay uga shaqeeya oo markiiba gacanta ku qabta waxaan runtii halkan jecel lahay anoo magaca wafdiga ku hadlaya inaan uga tacsideyno dadkii shaqaaqada wax ku noqday kuwii dhaawac ahaa kuwa ku dhintay hadday yihiin kuwa Gabiley ku dhintay iyo hadday yihiin saraakiishii ku dhimatay Qorlugud oo dhammaantood aan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannaadkiisa waasica geliyo maadaama nimankaas saraakiisha ay ku dhinteen gacan ka xaq daran dawlad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu haddii alla yidhaahdo sida ugu dhaqsaha badan aanu wax uga qabanno sidii arrintaa loo soo gebagabayn lahaa gacan ku dhiigluhu meel kastuu tagana haddii alla yidhaahdo aanu gacanta ugu qaban lahayn baanu muxuu ahay ballan qaadaynaa hawlihii kale ee gobolkana si wanaagsan ayay u dhammaatay wixii kale ee xaalxaalana waanu dhammaynaynaa haddii alla yidhaahdo si dhaqsaabay isaga dhammaanayaan laakiin waxaan ugu bishaaraynayaa bulshada reer Somaliland ee daawanaysa arrintaasu in la soo afjaray annagoo uga mahadnaqaynaa madax dhaqameedka iyo bulshada reer Gabileyba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu